Hadda ka hor ayaa nin wuxuu ballan ku qaaday in uusan guursan ilaa uu kala tashado 100 nin. Wuxuu la tashaday 99 nin. Waxa uu haray hal nin. Wuxuu go'aansaday inuu ku soo khatimo qofka ugu horreeya ee uu beri la kulmo. Waxa uu la kulmay nin waalan oo faras fuushan. Ninkii waalnaa ayaa ku yidhi, ka baydh faraska yuun ku jiirin. Ninkii gurdoonka ayaa yidhi, saaxiib faraska jooji, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo yar. Wuu joojiyey ninkii waalnaa faraska. Wuxuu yidhi ninkii gurdoonka ahaa, niyow ballan ayaan ku qaaday inaan la tashado 100 nin. Adiguna waxaad tahay ninkii 100aad ee aan la tashanayo. Waxaan rabaa inaan guursado ee talo i sii. Ninkii waalnaa wuxuu yidhi, dumarku waa 3. Mid adaa leh, midna ma lihid, midna ma lihid lamana laha. Ninkii waalnaa wuu tegey oo faraskiisii ayuu iska kaxaystay. Ninkii gurdoonka ahaa oo dabcan ku wareersanaa waxa uu la jeeday hadalkaasi ayaa ka daba cararay oo wuxuu yidhi, maxaad uga jeedaa? Wuxuu yidhi ninkii waalnaa, tan koowaad waa gabadha yar ee aan weligeed guursan. Jaceylkeeda ayay ku siinaysaa oo horey uma arag nin kale. Haddii ay wanaajiso, waxay odhanaysaa ragga oo dhan waa sidan. Haddii aad xumaysana, waxay odhanaysaa ragga oo dhan waa sidan. Midda labaad waa gabadh carmal ah, ilmana wadato, yacni gorob ilmo wadato. Waxbay kaa qaadi, wiilkeeda ayay siinaysaa, maalkaagana way qaadanaysaa, ninkii horena way u barooranaysaa. Midda saddexaad waa carmal aan wadan ilmo. Haddii aad wanaajiso, waxay odhanaysaa kanaa ka khayr badan kii hore. Haddii aad xumaysana, waxay odhanaysaa kanaa ka xun kii hore. Haddaba haddii aad wanaag u samayso, adaa hananaya, haddii kale sameeya. Ninkii waalnaa wuu iska tegey. Ninkii gurdoonka ahaa ayaa ka daba cararay oo wuxuu yidhi, waxaad ku hadashay hadalkii xaakimka, waxaana u dhaqmaysaa sida dadka waalan. Niyahow, waa sidii arrinkaaga. Wuxuu yidhi ninkii waalnaa, war qabiilkayga ayaa rabay inay iga dhigaan qaadi, laakiin anaa diiday. Way igu celceliyeen. Waxaana iska dhigayaa hadda nin waalan si aan ayaga ugu badbaado oo aysan iga dhigin qaadi. Intaasi ayay ku ekeyd sheekadeenna. Fadlan haddii aad ka heshay sheekadaasi, like saar muuqaalka. Haddii aad cusub tahay nagu soo biir oo dhaha channelka subscribe. Mahadsanid.